السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نغلا صعوتا warbaahinta SSD TV waxaan maanta khadka si toos ah ugu wareysanaynaa Daahir Faarax Samire oo isagu ku sugan duleedka Garbaciise sida laga warqabo waxa la ogsoon yahay in anfartaasi ama deegaanka anfartu heshiiskii la galay isagoo ka baxaya isla markaasina culayskii saarmay ayaa waxa uu bilaamay daandaansi ballaaran isla markaasina sida laga warqabo waxa uu weerar shalay oo ku soo qaaday aaga Garbaciise waxaana halkaasi lagu gaarsiiyay cadawga jab aad u xoogan oo nafiya maal bale hadaba Daahir Faarax Samire oo kamid ah dadka goobjoogayaasha kuna sugan jiida hore ayaa waxa uu hadda khadka si toos ah ugu jira may maqasha Daahir waan ku maqlaa ku soo dhawow SSD TV waxaad nooga warbixisaa bal xaaladii u dambeysay ee Garbaciise soo dhaweyn wacan horta hadda waxaan ku suganahay waa duleedka Garbaciise iyadoo heshiisyadii dowlad deegaanka Soomaaliya iyo deegaanka Canfartu waa la galay ay ahayd haddana inay deegaanka Canfartu ujeedaday kala ahayd in ay culayskii la saaray ee mushkiyadii lagu xidhay isla uga bixi lahayd ay dib isku soo habeyn lahayd iyadoo heshiiskaas sida loo eegayo inay ka faa'iideysato saraakiisha aaga ku suganna ay ugu tala galeen inay soo qabyo tirato dib isku soo habeysay toddobaadkan gudihiisa goobo badan oo kamid ah goobaha aan xuduudaha kala leenahay dhanka cadeynta iyo agaarkayga biyo cadde dhanka hooyaale iyo dagaallo ka waday sidaa daraaddeed aagan Garbaciise oo qalacle iyo madaxriyooley iyo duleedka magaaladaba haddana inay dib u bilowdo iyay daraatoole madaxriyooley iyay daandaansi xabadeed ay bilowday sax daraatoolana waxay aaga qalacle iyada oo rabta inay meel furan sida u heli lahayd ciidanka deegaanka Soomaalida ama shacabka deegaanka Soomaalida oo aad u diyaar garoobay marka ay u soo baxday aagii iyo hub waaweyn lagu garaacay wixii meesha soo maray intii ka hadhana madaxriyooley inay dib ugu laamaan markay dooneen iyakana tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaaday cadowgii halkaaba lagu burburiyey waan gartay Daahir Faarax Samire waxaan ku yiri bal waxaad iiga warbixisaa madaxriyooley waxaan maqalnay in ay gurmad u soo dirayeen mishigaasi arintaasi sidee wax u dhaceen madaxriyooley iyo duleedka bacadka iyo harta macallin horta gelinkan ba abaabul xoog weyn bay ku jireen shacabkoogii iyo maleeshiyaadkoogii iyo jabhadoogii iyo ciidankoogii inay furimaha ku soo daadgureeyaan si ay iyagoo la kaashanay welina ciidanka aaga Awaash ilaa Qalaafi ku sugan ay si dadban ula shaqaynayaan heshiiskii deegaanka Soomaalida ee Canfartu ay gashana ay ka baxeen iyo daandaansi ballaaran isku soo dayeen laakiin jawaab fiican baa la siiyey maanta ahaan meelo qaarkood iyagoo isku soo dayay xagga madaxriyooley inay hubcul culus ka soo daadiyaan hase haatee jawaab fiican ayaa laga bixiyey waayahay Daahir Faarax Samire bal waxaad iga warantaa xilli ma la dhaqan gelin doonaa baad leedahay heshiiska aad sheegaysay la gaaray labada deegaan gaareen oo dadkii Garbaciise lagu celin doonaa horta heshiiska ay waxa hal bacad lagu lisay ka dhigay waa deegaanka Canfarta heshiiska way gali taqaanaa laakiin ma fulin taqaano ballan way gali taqaanaa laakiin ma fuliso qorshe ay heshiiska marka culays la saaro heshiis bay dowladda federaalka kula caymataa laakiin kama dhaqan galo sababta uga dhaqan gali laayahayna saraakiisha Awaash ilaa Qalaafi ku sugan ayaa la shaqaynayso amarka sidoo deegaanka dowladda federaalku soo bixiso saraakiisha hoosta ka sugan maadaama ay Canfar la kaashinayaan xogta siinayaan miligaabay bay isu soo abaabushaa inay dhul qabsatay rabtaa marka maxay idin qorshaysan iniga haddii kole heshiiskii laga baxay inaad maaragtaanay sidee baan dadkeena ugu celin karnaa Garbaciise iyo goobihii kale laga soo barakiciyay horta maadaama heshiiskii ka baxeen ka baxayna maadaama iyagu ka baxeen in dowlad deegaanka Soomaalida isaga oo dhulkii welina laga haysto inaan welina u tixgelino anaka oo wadaniyada Itoobiya ayagayno saacada laga bilaabo aragtidan qaba waxa weey in
kol hadday ka bixin aan ka baxno wadankii aan hanano garbaciisi iyo cadayti iyo tareeni iyo shagli iyo dhammaan aaga coofle biyo cadde cadayle iyo gaawiliga dhammaanba inta goobooday naga haystaan in aan sida ugu dhaqso badan aan awood aan uga saarno oo cadowga aan iska difaacno wadankiina aan sida ugu fudud aan la wareegno waa waxa weeye waxay saaran tahay shacabka galbeedka city gobolka city dowlad deegaanka Soomaalida iyo nidaamka hadda jirta ee dowlad deegaanka Soomaalida waa sax waan gartay ugu dambeyn maxaad fariin u gudbinaysaa dadka ku dhageysanaya ama ku daawanaya adoo kala socda warbaahinta SDTV labaan kala qaadaa mid waa shacabka waxaan fariin u diray shacabka galbeedka city amba gobolka city shacabka dowlad deegaanka Soomaalida dhamaantood amba qurbaha joogan amba wadan gudihiisa joogan horta inay deegaankan masaafada inta leeg cadowgu dhulu lahayn uu doonayo in shacabku kaalintiisii ka qayb qaato uu furinta yimaado uu kaalintiisii ka difaaco kow shacabkan leh welina hiyo hoona la garab joogsado xubnaha difaacaya wadanka waa laba xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay war hadday milig kasta dowlad deegaanka canfarta iyada oo ay heshiiska ka baxaysa maxaa nooga baahay inaan wadankeena difaacano ha laga baxo aragtidan gaaban ee dib loo haysto waxa weeye ninka ay shantaadu kaa celin weydo wax kaloo kaa celin ma jiro anigu waxaan qabaa waxa weeye war shacabkii dowlad deegaankuna difaacu ku jiraa ciidankii dowlad deegaankuna difaacu ku jiraa siyaasiyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee hadda talinayso kaalintii iyo waajibaadkii dib ha u guranine wadanka ina la qabto wixii dhimanba ha dhinto asaate waxa weeye cadowga in laga difaacaan anu ku talinayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u maasanta daahir faarax samire waraysiga aad nasiisay bahada SDTV baan kaga mahad celinaynaa taniyo barnaamijkan wixii ka soo kordhana dib ayaan kala soo xiriirinaa taniyo kulanti dambe waa Xasan Cabdi oo iyo daahir faarax samire oo u waramayay SDTV oo ku dhaafaya sidaas iyo amaana Allah